جوجنا وزارة أمورها دبدا Somaliland حفيزك وزيرك محمد بيحي يونس برنامج كان وحسي قارا أنو ورئيسانينا وزيرك أو أنو كورئيسانينا arrimo badan oo ku saabsan siyaasadda amuraha dibadda iyo guud ahaanba xaaladda Somaliland iyo intii uu qabtay xilkan wasiirka amuraha dibadda ee Somaliland Maxamed Biixi Yunis oo ay aragnimo weyn u leh xiriirka caalamiga ah hawlo badan adduunyada ka soo qabtay oo hore ay nasiib igu noqotay markii uu jagada qabtay inaan wareysto inaan mar labaad xafiiska ugu imaado aan bal weydiiyo su'aalo door oo ay la muuqatay inay ahamiyad maanta leeyihiin in laga sheekeeyo waxa ugu horeeya hawshii ugu dambeysay oo ka soo qabtay xiriirka arrimaha dibadda oo ahayd wada hadaladii Somaliland iyo Soomaaliya ee ka dhacay magaalada Istanbul ee wadankaasi Turkiga waxa kale oo wasiirka iyo madaxweynaha Somaliland ba ay iyaguna tageen dalkaasi Faransiiska oo ay heshiisyo ku soo galeen iyo hawlo kale oo ku saabsan xagga horumarinta Somaliland ugu horeyntii waxaan halkan ku soo dhaweynayaa wasiirka سعادة الوزير كسور دو هون كيبل تي في مثلا سؤال شو هو الرجال بيديني وحويان سعودالكي أد كنت تركي قاعدة يوفتي قاعد هرك عيشو أد هشيسكا أما وده هذا الكلام كشين صوماليا وحول لي مرن بطن ودنا عيب بطن وفي الدولة قلبا وشدد دي شيء كده ذي كشط هدي سيكوبان وهرلع عن كوي ديو maxaa faa'iido ama waxtara waa isleedahay shirkaasi uu u lahaa in gebi ahaanba horta laga wada hadlo la isugu yimaado asalkeeda بسم الله الرحمن الرحيم آدي بعد ما هتدعو عليه إن المرة بعد فرصة بسيسو أنكو ورمو أنا نوقتي ما دو حرونتي وزارة دينا مانتا هذان أريكي تركي حاجة ورمو وده هذا الذي أنه دولة مقدش الله هين marka ugu horeysa horta waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqay anigoo ay la socdeen niman fara badan oo khibrad leh oo madax ah oo Somaliland aaminsan hadii aan ku dagaalamay markay noqoto qadiyadda ummadda nimanka oo aan nasiib u yeelanay inaanu aad iyo aad shan cisho adisaba annaku dhexdeeda isjafno ka wada hadallo istiyaarino tababar xagga talkska aanu qaadano maalin socday annakoo aaminsan oo diyaar ah waxay noo habeeysan yihiin baan Turkiga tagnay waa laga yaabaa dadka Somaliland inuu qofbada qadiyadda Somaliland aragti ka qabo hase yeeshee xaqiiqadii waxa weeye in maadaama anagu aan ninkii hogaaminayay tiimka Turkiga tagay ee masalay ummadda reer Somaliland waxaan qabaa I think idaacadaha hore iga maqasheen inay guul weyn u ahayd Somaliland Somaliland guul bay u ahayd sidaad ula socoto laba wadan oo siman oo labadaba ay markaad eegto qoraalka meesha ka soo baxay la seexday la leeyahay dawladda Somaliland iyo dawladda Xamar baa wada hadlaysa waxa venigu ahaan ku wada hadlay Turkiga oo markii labada Istanbul lagu qabtay oo markii shanaad waxa wada hadaladan waxaan u qabaa inay ku yara keega disnaayeen ama ku aad diyaar u ah annaka oo aaminsan inaan guuleysanayno annaka qadiyadeeda iyo aaminsan inaan guul iyo sharaf ummadda nadarateena aamintay ee na igmatay inaan u keeno maxaad oran kartaa ugu waaweyn ka soo baxay meesha waxaan igu muuqata aniga shakhsiyan oo aad la socotaa hadaan uu khibrad badan u labaanay xagga arrimaha dibadda iyo wada hadallada wadana badan wada hadalla ka socdaan oo aan ka qayb galay waxaanu samaysanay markii ugu horeysay wax la yiraahdo road map ama hab wada hadalladii looga wada hadlo oo qoran oo dhisan oo la code of conduct waxaan ku tilmaanay iyo habkii yani habkii loo wada hadli lahaa iyo sidii wada hadalladu u socon lahaayeen taas waxay nidaam cusub oo doorkan ku soo saaray waxa si ugu weynaa anigu aan qabaa shakhsiyan in ay muddo badan dawladda xamar diidaneed inuu xasuuq ka dhacay Somaliland dhibaatay ahayd ay diidanayeen aad iyo aad baanu uga wada hadalay way ka kaceen waan isku soo noqonay waxaanu goosanay inaan qadiyadaasi qadiyad aanan iloobi karin ay tahay أنا آمن سنة هي إن حسوق كدعي
language luqada aan ku hadlayna af Soomaali baa laakiin document-ka meesha ka soo baxay ee muhiimka ah Ingiriis buu ahaa Ingiriiska marka af Soomaali u turjumaysaan qofna turjumaanka loo sameeyay laakiin document-ka caalamku eeganaya ee akhrisanaya ee records ka galaya waa luqada Ingiriisiga kelmadda la isticmaalna atrocity sharaxeeda weyn waa xasuuq oo waxa laga yaabaa in kelmadda atrocity ka timid Nuremberg trial-kii Nazi iyo waxa oo macnaheedu tahay mass killings dad farabadan meel lagu wada dilay ama lagu xasuuqay dadka qabay anu waxaan qabaynaa runtii inay waliba noqoto kelmadda isticmaalna cidibtir hase shaad bay uga qeyliyeen kelmadda laakiin xasuuq midaanu aad iyo aad ugu faraxnay buu ahaa inay aqbalaan in ay ogolaadaan inay yiraahdaan for the first time xasuuq ayaa dadka la Soomaaliya loo gashay marka run ahaantii at least acknowledgement-keeda la ogolaaday ee la aqbalay lafteedu wuxuu leeyahay qiimaheeda waxay leeyihiin saacad wasiir qodobka marka mid la leeyahay anaga waa la xasuuqay Soomaaliya dhan baa la xasuuqay gaar ahaan biiraheen dadka reer Soomaaliya marka اعترافكودن ay اعتراafeen in xasuuq dhacay muxuu faa'iidaha u leeyahay iyo wax taraya wallahi wuxuu tarayaa oo maaragtay anigu aan aaminsanahay marka la yiraahdo reer Somaliland specifically ama gaar ahaan dadka reer Somaliland wixii loo geystay ayuu hada xasuuq ku saameysnaa xasuuq of course dawladda ka hadlaynay dawladii waxay ahayd rejiimkii gacan ku dhiibay Maxamed Siyaad Barre ee militariga ahaa oo aan u turin dadka reer Soomaaliya ee dawladii Hargeysa ka kacay dib u qarxinay wixii baan u sharaxnay way garowsadeen waxaan u sheegnay wixii dadkan soo gaaray oo hadii aanay aqbalin oo inaad aqoonsan wax la wada hadlaaba ma jirayso marka waxaan anagu aaminsanahay hadaan groupkiina hayna halkaas guul noo ahay dadka qaar baa leh malaha waxay uga jeedaan inaanu ama heeg la geeyay ama maxkamadda la geeyay ama compensation la weydiisto aad bay uga qeyliyay xagga qadiyada compensation kamaanu hadlinaya maaragtay maaragtay waxaan compensation maaragtay abaalmar lagu tilmaamo ama kamaanu hadlinana qadiyada sii wadayno maxkamadda geeyay hase yeeshee waxaan ka hadalno in horta la aqbalay dhibaatadii dhacday waxaan qabaa inay guul weyn tahay waxyaabo fara badan oo meesha ka soo baxay runtii anaga waxaan u qabnay guul noo tahay 9 bilood baan arkay maalin kasta dib u dhacay xaggooda aanu ka dhacay waa ka garowsanay marmarka qaarkood oo dib u dhacay hase yeeshee haddaan meeshii value-gii aanay secretariat jirin wixii daba gasha iyo continuity-geeda iyo dabagalkeedii oo aan wixii tale lagu gaaray aan la daba socon waxba socon maayo marka waxaanu qabnaa secretariat maamul u gaar ah oo Istanbul fadhiya oo labada dhinac masalay iyo Turkiga oo maalin kasta ka shaqeynaya shaqada wada hadalka inay guul tahay marka Turkigan idin dhexdhexaadinay ama sheekadan Turkiga u socotaan labadiina qolo waxay leedahay waa xaafad annaga mid oo sida ay ahaan jirtay jumhuuriyaddii weyneyd baan annaga ka wakiilnaa idinkuna waxaad leedihiin gooni baanu nahay turkiguna inta qaybtii hore laga aaminsan yahay wuxuu leeyahay mabaadii bal inuu dadkan walaalaha ah ee ishaysta dhexdhexaadiyo oo wax isugu keeno ma kuu muuqata in meesha lagu socdo ay tahay oo in xamar la isugu wada taga hadhow ma qabo waxaanu la kulannay si aad la socoto markaan raacay waftigii madaxweynuhu watay Turkiga tagay prime ministerka Turkiga way qabeen sidaa laakiin prime ministerka waxaan u cadeynay inay taasi mid dhacaysa ahayn dadka reer Soomaaliland waxay goosteen inay gaar isu taagaan ayagay ka timid waa wiilkooda waxay iyagu jecel yihiin qof bedeli kara aanu jirin prime ministerka waxaan ku qancinay doorka hore isagoo ka xumaado naxay runtii oo filayn inaanu si adag ugu sheegayno inaanu waxba ka soconayn isu imaansho aanu isu imanayna inuu nagu taageero laba wadan oo jaara oo siman oo isku dhinaca waxyaabo badan ay sari kara in wax nagala qabto prime minister wuxuu nagu yiri markaan madaxweynaha la socday haday sidaa idinka tahay waxaan jecelahay inaan walaaltinimada islaamnimadiina jaarnimada ilaalisa marka Turkiga wuu fahmay maanta I think sidaan qabo in qadiyada Soomaaliland aanay ahayn mid gobol duday oo la soo celinaya gobol xoor ahaa gaar u taagnaa
ayagoo socda xamar tegey oo aaminsanaa markaa soomaali weyn wax la yidhaha in la sameeyo shantii isu yimaadaan tiina ay maanta suroobi weyday marka ay xorriyaddoodii la soo noqdeen doonayaana si wanaagsan oo wanaag leh loo kala baxo hadalladuna waa muhiim oo iminka waad arkaysaa haddii masalan turkigu sida iminka u muuqataa hadalkan ugu dambeeyo kale inuu idin dhexdhexaadinayo u ekaa laakiin markaad dhinaca ka eegto safiirkiisii u joogay muqdisho ayaa ugu weynaa waxa labadiina dhinac ma garanaysaa dhex fadhiyey oo dhexdhexaadinayay maxaa u diiday turkigu hadduu dhexdhexaad ka yahay arrinkii labadiina qolo inuu wakiil ku yeesho bal yaanu safiirba idinka dhigin inuu heer wakiil idin gaadhsiiyo idinkana oo cid turkiya oo hargeysa joogta iyo cid turkiya oo xamar joogta ay istanbul idin wada geyso waad la socotaa waxyaabaha ugu waaweyn ee atiga anoo kale waa guul turkigu wuxuu goostay inuu halkan ka furo xafiis aqalkii way soo arkeen prime ministerku commitment adag ayuu ka sheegay in ay xafiis turkigu ka furanayso inay horumar keenayso inay dhaqaale keenayso wuxuu noqonayaa marka xafiiskaas mas-uuliyad baa taxamar buu hoos imanaya xafiiska madax bannaan taxamar hoos iman maayo waananu u sheegnay waxaanu doonaynaa inuu ahaado madax xafiis madax bannaan oo turkiga ku xidhan waxaa laga yaabaa inaanu safaarad noqon laakiin uu yahay xafiis turkiga laga maamulo oo magacyadii bay filayaan inay soo baxaan doorashay gelayaan bisha march wuxuu nagu yidhi markaa safiirkii magacoogiisii baanu sugaynaa qofkii idin imanayay marka waxaanu qabnaa inay xafiis gaar u ah somaliland inuu noqonayo turkigana dee horta mid waa inaan ugu mahadnaqnaa waayo wuxuuna siiyey opportunity aynu labadeeni wadan soo fadhiiso venue bayna siiyey dad siman buu inoo arkaa si simnaani aan wada hadlayna waxa wada hadlayana waa annaga isagoo facilitator haddii aanu isqabano isu kaaya soo celiyo ama aanu kala tagno laakiin dadka isoo fadhi ee doodaya ee murmaya ee qoraalada samaysanaya waa labada wadan marka run ahaantii waxaan qabaa oon meeshana soo gelin ood ku arki doonto de documentationska in international facilitation haddii loo soo baahdo in la geliyo waxaa kaloonu ku daray in experts haddii loo baahdo ama dad maaragtay sharciga yaqaan ama garsoorka yaqaan ama dhexdhexaadin kale haddii loo baahdo in laga ogolaado waxaa kaloo ku jirta inaanu caalamka haddaanu nahay annaka iyo soomaalida xamar iyo turkigu annakoo si wada jira aanu AU-da u tagno igaadka u tagno gaarna aan u tegi karo annaku qof kastaana oo caalamka aanu u sheegno waxa socda oo aanay dee qadeedii noqon qadeed turkigu ku lug lahayn caalamka intiisa kalena uu ogaado in aanu xaq u leenahay inaan igaad anigu aan u tago aan u sheego halkaasay marayaan AU-da aan u tago waana nu qoraya AU-da waana la kulmay safaradooda inaan brief garayno inaanu markaa fursad helo aan caalamkii gaarsiino waxa socda waana wixii wax dee meel yaro madow ku jirin haddii loo baahdana international facilities kale ama dad kale soo gashan karno waa ta muranka dadka badan kaga jirta sheekadeedu xafiis lama odhanaya xoghayn ama xafiis xidhiidhiya labada dhinac iyo shirarkooda iyo sheekadooda ayaa laga furayaa turkiga muxuu noqonayaa xafiiskaas xafiiska annagaa dalbanay waxaan u dalbanay haddii aanay wada hadalladu lahayn wax joogto ah oo socda oo dad ka shaqeeyaan oo ay dadki follow up gareeya wada hadalladii talooyinkii ka soo baxay shirka dambe recordskiisa minuteskiisa oo aan xafiis u gaarihi jirin dee hadalladii waxba aada ka socon maya siday hore u ahaan jirtay ahaanaysaa waxaan ugu talagalnay markaa inay noqoto the secretariat sidii for example markii South Sudan iyo Sudan wada hadlayeen nabaasho xafiisku ahaa annagu Darfur tayadaan ka shaqeynayay dooxaan oo ahayd oo qadar baa mas'uul ka ahayd xafiiskaasi wuxuu noqonayaa wasiir mid qolo waliba ay xafiis gooniye leedahay mise xafiis wada jiro oo labadii sekretarikii xamarkii kii hargeysa ka yimid ay isugu imanayeen iyo kii turkiga joogay oo sideeba u shaqayn karaya weli structure-kii aan u sameynaynay weli kamaan wada hadlin laakiin sida noogu muuqato ee aan isla galan waxa weeye wakiilla ka socda ama wakiil ka socda Somaliland iyo mid Soomaaliya ka socda iyo nin safiiro oo malaha Turkiya ayay tada madaxa ku hayaan oo mas'uul ka ah oo labadoodii ay la shaqeynayaan oo hawshii iyo follow up-keedii iyo daba socodkeedii iyo talooyinkeedii ay qof kasta badda qoladeedii mas'uuliyad
laakiin secretariat waxa haddii loo baahdana lagu soo biirin karo khubaro caawisa preparationka la khubaradaasi markaa maxay tari karaan masalan waxay tari karaan iyo xafiiska la fahantiisu muxuu ku soo kordhin karaa wadahadalka iyo shirka aad labadiina dhinac leedihiin wuxuu ku soo kordhin karaa diyaarintiisa wuxuu ku soo kordhin karaa recordskooda la qoro official ah wuxuu ku soo kordhin karaa ayagoo daba socdo oo talooyinkii la gaadhay ma la fuliyey xaggee ka dib uga dhacday miyaa cid kale loo baahan yahay miyay u baahan yihiin meelo kale oo waxaanu ku jirta aad arki doontaa 6dii week baan meel isugu dhimaadna aniga iyo ninka maaragtay niilgaleen ama 2 si aanu isu soo aragno marka waxaan doonaynaa in wada hadalada wax joogta ah noqdaan oo ana noqon 9 bilood mar la soo yimaado oo anaka danay looguma jirta cagtigu cagta jiida anagu aan degdegsanahay ayana waqti kuma socdo marka waxaanu goosanay maadaama ayaga waqti aad ku socon inaanu dawladda Turkiga ku qancino inay waxaan wax degdeg ah noqdaan oo haday wax dhaba ka tahay ayaga iyo dhexdhexaadintooda xafiis sameeyaan xafiis daba socda oo dedejiya oo aan maalinba dib loo dhigin maalintii la ballamay ee wixii wax deen noqdaan hadii kalena caalam kale u geeyno ama jidka uga leexano qodobka 6aad ee 9 qodob ee aad ku heshiiseen wuxuu leeyahay مثلا دولة تركيا iyo labada dhinacba waxa u furan inay wargeliyaan bulshada caalamka ama international community waa ayo cid aad wax u sheegaysaan kale ee waxaan u sheegaynaa oo aan actually bilownay oo nimka la xiriirnay AU kale midowga dadka inta badan waxay furanayaan African Union qadiyadiini kuma jiro waxa lagu oranayaa IGAD qadiyadiini kuma jiro waxa lagu oranayaa UN kuma jiro Security Council caalamkii carabta ma oga caalamada kale aan ku xidhanahay ma oga marka waxa muhiim ah in war joogto ah inaan hadanahay reer Soomaaliland iyo xamar iyo Turkigu ama anako wada jira ama anako qof ama wadan ah inaan u tagno caalamka u sheegno halkaas ay maraysaa sheekadii saasay maraysaa waxaan idinka baahanay waxtarka caynkaas ina ogaataan baan u baahanahay marka inuu caalamkii ogaado oo wixii wax tuuga aan noqono labadeen iyo wada hadlaynay Turkigu noqonay wax dibadda u soo baxo caalamka ogsoon yahay aan tixgelin dadkuna ogaadaan in wada hadallo rasmi ka socdaan labadan wada sidoo kala tagi lahayn ajendaha loo socdaana waa kala tag ma aha isu imaansho iyo federal waxa weeye Soomaaliland oo madax banaan oo goosatay inay meel gaar ah istaagto oo doonaysa si walaaltinimo looga tagto iyaguna waxay doonayaan Soomaali oo dabcan sidoo wasiirkii aad wax wada saxaadeen u sheegay midowda oo heshiiso oo walaaltinimooda oo si ka fiican sidii hore haystay ku soo noqoto idinkuna sida doonaysaa waa saas sheegtay haddii Turkigani uu ku guuldareysto inuu wax isugu keen kara ma idin dhexdhexaadiyo maxaa yeelaysaa ayagu waxay jecel yihiin ayay jirtaa laakiin wax Soomaaliland ay goosatay oo ka soo gooday oo 23 sano ay gaar u taagneed baa jira caalamkuna uu arkay dadku iskama indhatiri karaan Soomaaliya halkay gaadhay xorriyadeeda dimuqraadinimadeeda arrimaheeda human rights ku lug leh rule of law inay tahay dawlad maanta hore u socotay oo institutionskeedii waxay wada dhistay oo taagan maanta xaafadna wada arkaysaa kiiloomitir ma xukunta dawladda xamar sidee zeel xukumi karta marka runtii caalamku waa ogsoon yahay laakiin waxa la doonayaa si walaaltinimo oo wanaag leh oo xagaagashi ku jirin in labadii wadan ayagoo walaaltinimadooda jirta ay kala tagaan taasaan u wadnaa caalamkuna wuu ogsoon yahay baa laga yaabay inay shacbigooda sida ay raadaan ma oran karaan wax kale laakiin shacbiga reer Soomaaliya way ogsoon yihiin Somaliland soo socota inayna jirin ee sidii loo kala tagi lahaa xuduudeeni baa gaara laba isticmaar bayna kala haysan jiray way ogsoon yihiin inaynu u tagnay maanta aynu ka tagnay marka u maleyn maayo sheekada deema jaraa'idkooda ama TV-da ka yiraahdaan inay wax qiimo riida sameeyaan ka bedelayso tilmaantay inkood af ku dhufatay taasoo wadayo ah qoladan heshiiska idin la gelaysa ama waxay la wadaa calaamad bay haystaan iyo aqoonsi idinku aad leedihiin laakiin cid ma xukumaan oo sida tilmaantay xamar baanay ka wada talin qoliyaha qaarkood aan ka mid ahayna waxa baan idhahaa wada la haysto jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa dusha ka haysato intaasoo kunoo ciidan oo Afrikaan dusha ka joogo iyaga la ilaaliyo waa laga yaabaa inaan ku qaldanahay aniga reeran ka mid ahay laakiin waxa jira weyn ogna
maxaad ka doonaysaan idinku nimankanaad ogtihiin inaanay dalna haysan dadna haysan meel lahayn oonay waxba u talin sidaad masalan dee dad bay rumaysan yahay kolba aad turkiga u raacaysaan mataa idinka laftiinu malaha iyaga maxaad uga jeedaan yani sheekadana kolba dhinac waanu la hadlaynaa aroorta idinkoo shirkii fadhiyay qaar dhaceen oo xilkii laga qaaday markaa inaad ama sugtaan intay cid iyo meeshaa cid xukumayso ama aada idinkuba si kale wax ugu garsaan miyaanay ku habboonaatee hadda saad dawla socoto iminka muddo badan ayaynu kala aamusaneen oo wada hadlin waxaana noogu muuqataa annaka malaha dawladdani tii dee caalamku intiisa badani uu ictiraafay more or less inay tahay ee wada halaalala geli karo nimankii hore ama warlordska ahaa ama dee ka horreeyey dad wax lala geli kara may ahayn dawladdana may ahayn laakiin maadaama international community-gi yahay maaragtay beeshii caalamku ay u aragto inay dawladdani tahay dawladda keliya ee ay dee wax la dhaqmayaan oo ay la shaqaysanayaan waxaanu garanay inaan dawladdii wada hadalkii la yeelano marka maadaama ay dee haystaan aqoonsi dadkii ay u arkaan walow ay runtiisa ay taho dee 20 kun oo askaroo afrikaani joogto dhibaato badan ay haysato hase yeeshee dadkii caalamku waa ugu soo gurmayaan oo inanka quludoon waxaanu jecelahay inay degto oo nabad noqoto marka waxaan u aragnaa inay tahay dee dawladda keliya ee dee maanta some legitimacy haysata eenu la hadli karno marka waxay noogu muuqataa inaanu wada hadalka la sii wadno mandatekiina dee waa haystaan caalamkan iyo dadkina dhexgelayna waa dadkii caalamka ee international community-gi marka waxaanu dee qabnaa inaa halkaanu iska fadhi lahayn maadaama ay yihiin kuwii ugu dee dhowaa dawlad ahaan wax jirta loo arko inaan wada hadaladii la wadno inaad albaabo kala garaacdaan oo aan soomaaliya unahayn ma ku tala jirtaan hawaan ku tala jiraa waananu garaacnay qarsoodina maaha caalamka dad fara badan baanu la hadalay taad imika carabka ku dhufatay ay kamid tahay France dawladaha ingiriiska waan la hadalnay Ethiopia waa la hadalnay Djibouti waa la hadalnay Uganda waa la hadalnay Kenya waa la hadalnay wadano fara badan oo caalamka oo kala gedisan aan qadadeeda gaarsiinay maxaa la idinku yidhi markaa طبعا dadka intooda badani ama ha ahaato Faransiiska ama Ingiriiska ama caalamka intiisa kale nimka xilaaqaadka la leedahay aad iyo aad baa loo soo dhaway wada hadalka waxaan leeyahay wada hadalkaasi waa dariiqii sax ah halka ka wada dadku way ogsoon yihiin oo waad arkaysaa in maanta France cilaaqaadna la leedahay Ingiriiska la leeyahay Norway Danida you name it oo wadana fara badan maanta ay cilaaqaad inana leeyihiin in la dhig garanayaan sidii de wadan jira taasoo ay keentay xasiloonida nabad aynu haysano shaqada fiican aynu qabsanay halkeen inagu isgaarsiinay oo dadku arkayaan dadkii wax qabsaday wax la qaban karaa marka caalamku wuxuu noo dhigay garanayaa sidii dawlad jirta oo de wax qabsatay marka waxaan aaminsanahay in caalamka intiisa kalena loo soo gurman doonto haddii ay ka fursan weydo inaan de wada hadal ku qaato waxaad dhawaan tagteen adiga iyo madaxweynaha iyo wasiirro kale oo ka tirsan xukuumadda Soomaaliland dalka Faransiiska heshiis baa shirkad Faransiisa ama hawlo ganacsi oo kullayba dekada berberina ay ku saabsan tahay ayaa aad soo gasheen maxay tahay Faransiisa maxay noo geeyay oo xaggan Ingiriisida iyo waxba lagu dhadhawaa markaad u eegto reer Soomaaliland dawladda socota dawladda Faransiisku waxa weeye shanta wadan ee Security Council ku jirta waana super power Soomaaliland wadan gaar ah uma xidhna cilaaqaad badan baynu lahayn Ingiriiska waxtar badan baa inaga dhaxeeya laakiin waxay noo diidaya inaynu kuwa kale la xidhiidhnaana ma jirto oo anagu waxaan aaminsanahay inaan albaab kasta garaacno dawladda Faransiisku si xoog leh noo soo dhaweysay waxaan la kulanay wasiir al-khaarijigooda oo nin caana ah oo saad ula socoto 30 sano horteed ahaan jiray barnaamijka France dadka qaanan leeyihiin baynu madaxweyne noqdaa laga yaabaa oo nin culus ah si xoog leh noo soo dhaweeyay si dawladeed baan loo soo dhaweeyay protocolskii dawladeed oo dhan baan la siiyay waxaan ka wada hadalnay labada wadan iyo cilaaqaadkooda doonayaan kobcino inaan cilaaqaad khaas ah la yeelano doonaa dawladda Faransiiska ama ha noqoto xag tacliimeed ama xag dhaqaale ama xag culture-ka ama xag waxtar maaragtay bulshadadeedka ama terrorism-ka iyo khaasatan dhaqaalaha aan kaloon la kulanay sanadka Faransiiska oo aad iyo aad noo soo dhaweeyay oo aad iyo aad aanu kala hadalay inaanu
doonayna xataa inaan ka qayb galno secretariatka francophoniga marka oon observerka dalalka afrikada franka ku hadla marka waxaanu doonaynaa inaanu ballaarino cilaaqaadkaanu caalamka la leenahay wadano kaloo waaweyn waanu tegi doonaa waxaanu aaminsanahay inaananu dee beedkayga basket keliya gelinay aanu meel kasta xiriir la yeelano oonu qadiyadda somaliland ciddii aanu ka iibin karnaba ka iibino haddaynan sharxin oon caalamka aanan u sheegin inaynu laba wadan oo kala gedisannahay dad badan baa isku qasa oo haysto marka Somaliland marka inaynu sharaxno oo waxaanu qabsanay halkeenu marayno wadalayna ogaado inuu maabka caalamka galo saa ogeed baan imika maanta shirkadaha ula qayb galayna tan aad carabka ku dhufatay aad dekada weli heshiis lamaanu seexan waxaanu wada hadallaan noo socda waa dekad niman khubaro u ah Bolare baa la yiraahdaa 20 dekadooda caalamka ee maamulaan Afrika ah 46 wadan bay Afrika joogaan waa ku caalamka ugu waaweyn maamula dekadaha maamula khibrad culus u leh imika waxaanu soo eegaynaa Nigeria iyo Congo iyo Ghana iyo Ivory Coast wadanada maamulaan iyo dekadaha ay maamulaan wada hadalada way noo socdaan marka waxaanu doonayaa in khubaro u yeedhano waxaan yaqaan oo naga eega oo boorska cilmi oo looga cilmi oo hoday naga eega marka baaritaanka aan wadno dibadna dhow sida heshiis u haddii aan heshiiska haddii aan arayno danta Somaliland ku jiro markay khubaradu nagala taliso inuu soo aragna meelaha badan ay maamulaan iyo sida ay u maamulaan in World Bank la tashanay experts independent oo annaka noo shaqeeya qorano إنه وحي كوقنا عنبان دعيب حلق اللي كلام. مركا. وإنجي سووني مكشاكل. والله أحسن هاي سوفر وهوشي قبتين إيه وحي مارته وضم العالم كقبتين. مركا تحسين الدوام منه تعالوا مركا إنه لقارد وقت جيدة هذه دولة سوماليلاند وعرفت إني دنتين كشفته. إما دو حرسة حنكرها. أنتي قبطي الحين كان وزير كامورها ديود سوماليلاند. طبعا سيدي aad markii hore ballan ku qaaday waxa sii gudaha inta badan ma joogi doonee dibadda ugu ogtay shaqooyin badan baad u baxday meelo badan baad tagtay haddaan xasuustaa wixii ugu horreysay ugu adkayd waan filayaa waxay ahayd sharikaddii shidaalka baadhaysay ee Ingiriiska u guurtay ama inaga dutay si kastaba ha ku noqotee inaad ka daba tagtay oo soo celisay carabaha tagtay hawlo badan baad markaa ka soo qayb gashay maxaa ugu waaweynaa isleedahay muddada kooban ee aad joogtay way u qabsoomeen wasaaradda amuraha dibadda ee Somaliland wallahi waadiga toos carabka ku dhuftay qaar kuwii ugu waaweynaa ay ka mid tahay tababarka oo saad uga socotay inaga tagtay oo ku dadaalayaan soo celino waxaanu keenay khubaro eegtay nabadgelyada ka cawdeen in wax laga qabto waad la socotaa in khubaradii daraasad sameynayso aanu sameyn doono insha Allah dhawaan waxaan yiraahdo oil protection force inako aanu leenahay oo ajnabi lahayn waxa kamid ah dawladda Itoobiya la socotay qudiyadeeda dhawaatada inaga gaadhoon soo celinay saad ula socotay wadana fara badan baan tagay oo kamid tahay Djibouti oo kamid tahay Kenya oo kamid tahay Uganda oo kamid tahay Itoobiya xoog ugu weyn waxaan aad u saaray dawladda Itoobiya in cilaaqaadkeena aad u kabcino markaan nimid 9 bilood maynu arkin يمكن علاقات حولي أيام لنا هاي والله سعوتنا ما عنده توا وديارنا مدحونا هي براي من السكون سركان أريما علوس ووين ودقالة لا وإيكونوميك إنتجريشن وكنت معي براي من السكون ووين ما نقول هذا الله لو وزير بنروس هاري من هو شاورنا وحنا قبائل تقوي علاقات قوي اللي دون آد وكبحنا هي إثيوبيا ما حنا حق نبت ليها النقطة أما حق دقالة النقطة هذه أهمية حول أسرية دكتة بربرة يعني كل نقطة دكتة هو وين استعمالها يمكن واحد وقتها له حال استعمالها نوع جيبوتي ودن حين كاسو 19 مليون دكتة كلية اسمها الله ينكره واحد قوستين مكان بربرة نقطة دكتة وين استعمالها أو أي أحكي شام إذا كقريب قناة أو مارتي جد كلية سديسة ما هالنقطة أما دنين يعني ألعبتك سود الجستان marka horta Itoobiya wadan qabeynayno calaaqad weyn la leeyahay waxyaabaha waaweyn ka wada hadalay waxa kamid ah in iigaadka kala duwan observer ka noqon oo kala hadlay ayaga iyo Itoobiya iyo Djibouti iyo Uganda iyo Kenya iyo Sudan insha Allah waan mushkarayn qadida inaan hay'adaha caalamka
lama markaan noqono observer noqono sida hore markaan fadhiin ayaan ku tala jiraa turkiga waanu tagnay ballamay qaadanay isbitaalka dhisaanan kasoo dhammaynay iskuule iyo waxtar badan oo ay aad iyo aad wax noola qabtaan ingiriiska cilaaqaad baan la yeelno la kulmay laba wasiirka afrika iyo wasiirka nabadgelyada waxyaabaha waaweyn kala hadalay waxaad la socotaa inay inagu sameeyeen waxay dhahaan travel advisory khariban oo dadkii baaxmitarigana soo gelinayay ishortaagaya taa inay wax ka bedelaan weliba noo soo hadalkii ballan waxay ka qaadeen inay wax ka qabtaan waayo waxay ku saameeyeen wada maaragtay travel advisoryga dhibaatada xamar ka taagan ayay yidhaaheen halkana gelina marka qalad baa dhacay laakiin waxa la qarxiyay waxa ugu dambeeyay 208 marka ay qudhada hadalladaas noo socda waxaan imaaraadka la socotaa dee dhowr goor baan tagno ay qudhada wax tariya waxaan ka filanaa inay wax wadanka u qabtaan ugu dambeystii سعادة الوزير وأنا كنت دالي وأنا مريني وقت بدن وأنا كاقات شركتها يمكن المنطقة يدي بدها لقى كيني مثلا بترول كوكا باريس يوحبا يتيرها كنت كذي قاربة دوني واحد مودة أفريقيا إن لقوا دولي وضمني رجال قلبيت كي يشيني أما يسكو هايستان ورو ماتيريال أما qalabkooda ama kaydkooda yaala marka ma wax dhababa oo sharikadahan idin imanaya inuu xudxudanaya marba dhinac idinka soo maraya ma wax dhabay mise waa boos celis sidii la odhan jiray markaad meel qabsanayso halkaasii calaamo soo sii hayso waa dilaaliin waxaad la xidhiidhaan ma runtii sharikada way baan la xidhiidhnaa waana la socotaa dee markay sharikad weyn oo magac leh ama culusi ama wadan culus ka socota ku timaado ee ayadii meesha wax gashato ee danteedu gasho waxay ku yeelanayaan interest marka haddii imika faransiiska bilmithal halkaa galo ama ruush yimaada ama yimaada ingiriisku ama sharikada waaweyn oo turkiga ama dee caalamka oo waaweyn yimaada markuu qofkii meeshii wax gashado dee qof wax ku yeelanaya wixiisa ilaashanaya wixiisa difaacaya marka leverage bay ku siiraysaa adigana dee ictiraafaatintaadii iyo caalamka waxqabashadii kula qadanaya marka run ahaantii wadanku wuxuu u baahan yahay shaqalaan baa taa dhaqaale buu u baahan yahay horumar buu u baahan yahay maanta caalamkana horumarkii waxay dhahdaan economic diplomacy oo trade iyo investment iyo dhaqaale waa diplomacy oo haddii aan maanta meeshii aan la dhaqaashin oon dhaqaale iman oon waxtar iman oo aanad caalamkii u yeelinoo hantida iyo qaninimadaada sidii aan lagala shaqaynin dee halkii baynu fadhiynaa marka horta waxaa muhiima inaynu fahamno inay dhaqaalihii iyo siyaasaddii ay maanta isku mid yihiin oo dhaqaalihii actually siyaasaddii u jiidayo marka ninkii meeshan wax soo gashada ee dani ka gasha dantii siyaasaddaadana dan buu ku yeelanaya in wax kala qabto waayo xoolihiisii baa ku jira marka inana dan baa inoogu jirto maanta dadkeenu shaqay u baahan yihiin horumar baynu u baahannahay jidad baynu u baahannahay inaan wixiina dee horumarnaynu u baahannahay marka waxaan qabaa inaynanu albaabada xidhin albaabada u furo sharikadaha waaweyn dadka waaweyn ee maalgasheenka ah waayo waxa loo soo hiranaya ugu weyn waxa weeye waa nabad meel dhan u wada gubanaysa halka nabad in laydinla ogaado oo masalan dadku waxay ku cawdaan sharikadahan qolunbaa keento ama wasiir yar ama qolo guruubahunbaa keento dabeedna hadhowna waxa la yidhahdo halkana waxaana laga soo saaray markaa wax baarlamaanka la soo mariyo oo si sharci aad u marisaanoo mise weli sidii hore ee magaranaysa yara wax qarsoodiya ma rabno waxaanu jecelnahay wax kastoo imanaya inuu baarlamaanka ogaado dadku ogaado shacbiga ogaado wax la qariyo dambe ayna dhicin marka waxaanu aaminsanahay ilaahay nala qabtay inaan wixii aanu keennaba dadku ogaado oo baarlamaanku ansixiyo oo wasaaraddu ansixiso oo guurtiidu aragto ummaddu dee ogaato wixii danteeda ku jirto dabcan dee wax kasta oo aanu wadno banaanka ma soo dhegaysa wixii sira ah ee danta ummadda iyo securitygeeda ku lug leh laakiin wixii weyne dhaqaalaheena iyo horumarkeena iyo shirkadaha imanaya markii guul la gaaro in dadkii la socodsiiyo waa muhiim wasiir alkhaarijiyaad ama wasiirka arrimaha dibadda ee somaliland dabcan socotadaadu way fara badnayd hawshaadu way badan tahay muddo yaroo gaaban bad inta badan dalka joogta laakiin maalmaha waxaad muddaa daakhiligiina lagu soo celiyey oo guddiyo dhexdhexaadiyo arrimaha hoose meenay waqti lumis kugu noqonayn ama maadaama adigu inta badan aad waddanka dibadda kaga maqnayd
miyana ahayn in la yidhaah war wasiirkan howlaha aynu dirina aanu dayno sheekooyinkeena gudaha ka dayno طبعا سيداد ولا سعوتان لور قربان دين ما هي مارت arrimaha gudaha ma jecliyo todobada qaabilsanahay hase yeeshee haddii dee ummaddu iyo madaxweynaha iyo dee dadku ay dan moodaan inaan khibradayda iyo aqoontayda iyo dee waay aragnimadeeda weyn aan wax ka qaban karo arrimaha gudaha dee waa inaan dabcan taana u soo jeestaa ta kale arrimaha guduhu saldhig weyn bay ku leeyihiin arrimaha dibadda haddii aanay waddanka gudihiisii ama nabadgelyadiisii ama teenay guduhu ay wax ka yara kala daadsan yihiin impact culus bay ku yeelanaysaa xagga dibadda marka kolleyba inaan gudaheennana habayno wixii la qaban kara la qabano hawshii lanoo diran aan dadka ku dadaalaan ka soo dhalaalo marka taa qudheeda anigu inta badan doo maqanahay markaan dee chair baan ka ahay gudoomiyaheedii baan gudoomiye ku xigeen baa joogo sharci baan leenahay tudee gudoomiyihii maqayna gudoomiye xilka hawsha sii wado hase yeeshee intaan joogo dee wixii dadaalkayga inaan wax la qabto wixii danta ummadda ku jirto inaan ka qayb galo aad iyo aad baan u faraxsanahay aad iyo aad baad u mahadsantahay